وقصة كلا عدي ودن كإنجليز كواجي إنجليز كجوجينة يفرنتها أصلا آد بنرجع على إن فافيسان هدي على المقام بين كتها نيلي يرادو ميرو governor نيلي أو governor of ميرو وأدو قدوميها قبل كميرو وودن ككينيا إرجعوا هجامين كينيا صادر ستي يجوا رادينيا والله ما كوني يصدق يتمنكي يجوا رادينيا كينيا له أنا قلت شو قاعد كدت بكون عليه إرجعوا وان سصهر فريسنا يقولون يدي كده ده يسين نقول شو شيء نبون نقولها يا كينيا واحد كده ده إرجع يسمع سوي حاجة وهو يرو وحنا إنجليز وجو وحنا ضد God abiding أو كريستيان أو Commonwealth كوتشرا أو إنجليز كحرير قطر درلله أناقو قات كيجو وجرين جولد سيدا السعودية إلهي بترول أسي بأننا الذهب كاس عقار إلهي نوسي وحنا وضد كاس هنلو دايو وقادنا لعقت أن قات كهلا ما إن أنت كليه كعنه 8% أو كم إذا وحنا كفيد إن الدين تمسيحي وحنا كود بعنا بايبل الله وحنا كود بسنا كنيسة ده وحنا هذا الأسوحينا يا كلمة داس ما أنت بوساسا جوجا نينك قات كعنو أجو هذا هراي أوجين لعقت أدهرك كقدسي لعقت أدعرورت هذه أدي دي دين تمسيحي قال وفدية قلبك قدام بيا وأنا ربعنا كسوق بجبيه وحوي محل قبان كرايو معقولة ما نقول أنت إذا كسر نقطة إن أنت تريد تقول كلا حل معها أفر طلابه يرير بان إسلام النهاي طلب بدل مركان عرورني وحوا بدل كران مسؤولين ترى وشجنا نمبر كو منهج waxbarashada in lagu daro oo iskuulaadka iyo dugsiyada iyo meel walba cunug lagu barbaarinayo in loo diyaariyo cunugaas khataraha ku meeraysan oo hortiisa yaala qodhahaas mudug kara in la dhaho baalkaas qaad baa la dhahaa raggi ka horeeyo cunay wakuwaas maxay dhahaan dhibaato adduun dhafoor bay ku taalaa wakuwaas ragga aan cunino masaajidada ku jira dhafoorkoodana wakuwaas adeerow ka digtoono in caruurta loo dhigo maadi ahaan loogu dhigo suugaan ahaan loogu dhigo diin ahaan loo dhigo la soo kibciyo generationka soo socda caruur ka wacyi galsan oo og oo aan ugu sirmin qaadka sidii aan anigu ugu sirmay waxaan soo jeedinaynaa in gaf gudaheeda in laga saaro gaf bay noo tahay masaajid hortiis halkaan aan ku arkay suuqa masaajid hortiis qaad lagu gaday arrintaas culimadu door weyn bay ka qaadan kartaa dawladda waxaan aad ugu boorinay war cashuurta ku kordhiya laakiin caqabada ay sheegteen waxa weeye tan haday kordhiso taasaa free ka dhigaysa taas haday free ka dhigtana waa la isku xunaya Puntland haday joojiso wuxuu ka dagayaa gaalkacay geeskeeda kale isagoo lug ku socda oo xabad wato soo galaya marka marraba inaan siyaasadda dhex milmo laakiin dawladda waxaan leeyahay cashuurta yartaad ka qaadataan kaliya fiirine muruqa idin ka fadhiya maskaxda idin ka fadhida musuqa iyo inta hooyo ooyeysa taasaad ku dhaarateen kitaab jaamaca ku marteen taas tixgeliyo fiiriye qodobka ugu dambeeya oo aan rabo maanta masjid rawda inuu hogaamiyo kalmadaas isbahaysiga islaamkana waa ka yiri waxaan wadnaa hal qodob oo aan isleenahay wax badan buu bedeli karaa waxaan nahay dad islaama ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu yiri sooma bisha ramadaan waxaan niri waan adeecnay waan soonnay annagu xaaladdeenu sidaas tahay oo iska daa wax kale sharciga Puntland uu qabo makhaayad lama furi karo bisha Ramadaan biibita lama furi karo ma ina qabataa in cunto bisil oo diyaarada ku raran subaxii 8 subaxnimo naloo soo dajiyo oo xaraan asalkeedu ahayd oo Ramadaan joogto oo la dhaho cuna waxaan awoodnaa dad islaamana arrintaas waa gafdiimeed waxa lagu xadgudbay qiyamkeena iyo sharafteena iyo Ramadaankeena dad islaam hadina la kala xishoon waayay war dadkan xataa aan biyaha cabin billahi alaykum 40 diyaaradood daroogaas ugu rarnaa adduunyadu way kala xishootaa waxyaalaha sensitive baa la yiraahdaa war dadkan dhaqankooda lagu xaq yeesan ka caroone waxaad moodaa Soomaaliya in meel lagu ogaaday oo la yiri kuwani iyadoo Ramadaan tahay barqadii ugu wacunaya iyagu hoon yarinayo didayaad arkaysan marka arrintaas waxa la rabaa culimadu inay hogaamiso billahi alaykum sheekh daahirna maanta hortaydu fadhiya ma rujin kara anigu waxaan qof iyo laba iyo rujin kara ma arrintaas garbaha qabta way awoodaan culimada Soomaaliyeed meel ay joogaan inta isu yimaadaan mas'uuliyiinta u tagaan inay dhahan tan annaga cimaamadayda kor saaranay bishaas
xigmadda ku jirtana waxa weeye caruur ciida reero xasila la ducaysto dib loo fakaro iyo anaa cuni jiray nin bil rabadaan qaad waayey dib dambe ugu noqon maayo inta ka go'aysaa ka badan waa xeelad 11 bilna bil baan horta halkaas gashan 11 kale aan u soo jeesanaynaa marka culimada sheekh daahirna maanta hortaydu fadhiya oo ku celinaya arrintaas idinkaan idinku ogahay